waxaan aad uga xumahay gabadhan wax ku dhacay. No man. Somalilanderka markii ay arkaan cadaanka maxay sheegtaan? I'm from America. Yeah, bro. I am Somali people. Nice. I am Somali people. Hargeysa? Nice. I am Sak. Nice to meet you, brother. Anaga dhexdeena markaan joogno maxay sheegtaan? Somaliland. Amida. Waxaan ahay Soomaali, waxaan ka sii ahay Isaaq, waxaan ka sii ahay habar jeclo, waxaan ka sii ahay aw gale. Ninka wariyaha ahaa wuxuu ahaa nin wariyaha oo wardoon ah. See, people are either like really friendly or they're like, no camera, stop. maadaama Soomaalida qabiil lagu sheegay qabyaaladna ay isku dilaan in uu soo ogaado Soomaalida wax ugu badan oo dhaxdooda ka dhex guuhay. isla markii wax ugu horeeya la weydiiyo yaa tahay leeyahay Soomaaliya ahay yiri ka bacdina qabiilkiisu basii galaba. Waxa ku filnaa oo kaliya in uu yiraahdo Soomaaliya ahay. I am Sak. Nice to meet you, brother. Hey, brother. Anaga dhexdeena Soomaalida waxaan isku hayn anaga noo taalo. Soomaalilama sheegtay Soomaali uu yahay laakiin in uu Isaaq iyo qabiilo kale iyo foosto kale uu soo riixo waa ujeedka iyo wariyaha waxa uu doonayo si fudud inuu ku helo aad iyo aad ayuu xumahay wiilkaas waxa uu sameeyay ma ahayn in uu qabiilkiisii barnaamij kale meeshaas uu sheego ilbaxnimada reer magaalada ayuu arkaa in qof ajnabi ah uu qabiilkiisa u soo sheego marka ninkaas nin soo dhow ma ahan waxaan aad uga xumahay gabadhan wax ku dhacay. No man. Stop touching me. Stop. Look at this. waxaa la ii sheegay sida xogta igu soo gaarayso kuwa kaamarada gadaasheeda taagan in ay gabadhan yarta ku tashkiileen ama ku dayeen in qofkan cadaanka ay qabsato ka bacdina video ka duubta ka bacdina lacag fiican oo macquul ah ay ka qaadato taas oo kuwa kaamarada gadaasheeda taagan nafsadooda hunguri iyo damac ka galay sida daraadeen gabadha dhiiqadan arkaysaan ku goliyay cadaanka ay ku haysaa xitaa fiirin xitaa lama soo fiirin wuxuu leeyahay gacanta wuxuu leeyahay iga wax ma hayo iga wareejiyo leeyahay codkiina waa la duubayaa oo gabadhii iyadoo madow oo iska duruufaysan ay kaamarada soo galaysaa oo ay soo qabanaysaa aad iyo aad uga xumahay dadka barnaamijkaas ka shaqeeyay foolxumadaasna noo soo jiiday dhibaatadaasna kala tilay xitaa ka danqan waaye in gabadhan yarta maadaama isa kaamarada iyo saameynteeda ay fahansaneen ka qabto oo minaha kaamaradaas ka bixiyo halkeeda keeni waaye aad iyo aad uga xumahay dadka hunguri ka raadiyay in gabadhan ninka cadaanka ay salaanto lacagna ay ka qaadato kula taliyay ee dhiiqadaas lagu hawlgeliyay Somaliland sidaan xal idin ma ahan sidaan wax ka bedela marmarka qaar waxyaabaha laga qaatay in aad ka dabagasho waxa ka fiican in aad ka fikirto dhibka ka iman karo waxa laga qaatay maxaa ku dhacay ninkan xariifkan telefoon ayaa laga qaatay tuug ayaa telefoon ka soo qaatay labadan qol u jeedaan midkood ayuuna galay midna waxa ku jira askari booliis ah midna tuugi ayaa ku dhuntay laakiin mishinka waxa daadihinayo ninka meesha fadhiyo oo ninka si toos ah u mishmay asagoo luqadda dadka dhagolayaasha isku fahmi karaan kula hadlayo wuxuuna yiri sida tan maxaa laga wadaa kaali ninka intuu galay caadi ayuu mishmay ka bacdina ninkan ma uusan fikirin sidii wuxuu ku fikiray ninkan sida uu soo bixin lahaa sakaalo biyo ayuuna soo qaatay meeshii dadka ay ku jiraan ayuuna ku shubay askari booliisana ka soo booday waxaana ku dhacday sida tan marka ujeedka sheekada waxa waaye waxyaabaha qaar in aad ka dabagasho waxa ka fiican in aad iska daysid maxaa yeelay dhibaatada ka imaan karto ma fahmi kartid mana ogaan kartid telefonkiisa laga qaatay in uu soo furtay inuu isku dayay laakiin wuxuu ka dheefay in 150 jeer neefta lagu dhajiyo biyo uusan cabi karinna madaxa loo geliyo guuleysta waxaan ahay Mr. Klimatani hadda jara waxaan soo gudbiyaa waxyaabaha bulshada ay xiisayso haddii ay war tahay sheekooyin iyo madadaalooyin kale hal follow iyo hal subscribe iyo hal share
waa dhanka guulista. Part 2 casaayihii isku bedelay basaas. Ugu dambeyn ninkii hotelka ayuu soo galay waxa uuna la kulmay dadkii uu balanta lahaa ama uu rabay in uu waqti la qaato wuxuuna ku soo dhaweeyay dalkiisa Pakistan. Welcome to Pakistan, Romeo. soo dhaweyn ka bacdi xarfaantii waxay isku bedeleen oo awalkii GPS ku soo xirtay in ay nolosha ku qabtaan waxay iska dhigeen waytarada hotelka ama waytarada maqaayada meeshaas ku taalo waxayna isku dayeen in ay qori soo qarsadaan ka bacdina waxay soo qaateen qorigii jaakada hoosteeda ay soo gashteen biyo cabitaan ay keeneen ka bacdina ninkii dhammaan 20 milyan soo xaday sidaas ayaa nolosha looga qabtay. रुके कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं लेके जा रहा? नहीं सर, खाना है। ठीक है जा। Oh no! Hands up! Oh no! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। بعد waxa loo wacday securidka ama shaqaalihii awlkii meesha lagu bilamiyay dadkii la rabay in ay ninka nolosha ku qabtaan ayna u dhiibaan dadkii uu soo dirsaday. अरे रोमियो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? gabagabadii gunaanadkii ninkii waa la qabtay sidaan ayaa loo bahdeliyay. ए असलम, फरहान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। मेरी बात सुन, बड़ी मौत मौत करता है ना तू। आज तुझे चौधरी असलम बताएगा कि मौत का असल रूप क्या होता है। बता पाकिस्तान किस मिशन से आप बता। ए असलम, मेरा मिशन जब सुनेगा। maxaad ka fahantay casaayihii isku bedelay basaas weliba soo qabtay nin in ka badan 20 milyan soo xaday. gabagabadii gunaanadkii sheekadii halkaas ay ku soo dhamaatay waxaan geli doonaa baati kale iyo qaybo kale oo noocyo kale ah. soo dhawaada waxaan ahay Mr. Galibtani guuleysta.